ay horumar badan samaysay sanooyinkii u dambeeyay. Dekada Berbera ayaa kaalinta 144 ka gashay xagga maamulka dekadaha caalamka sida ay tilmaamayso daraasad uu sameeyay Bangiga Adduunka sanadkii 2022 balse sanadkan la daabacay. Warbixinta Banka Adduunka ayaa lagu sheegay in dekada Berbera ay ku taalo goob istiraatiiji ah isla markaana muddooyinkii u dambeeyay ay dekada ka socdeen howlo lagu horumarinayo kaabayaasha. Saciid Xasan Cabdilaahi maarayaha guud ee dekada Berbera ayaa horumarkaasi uga waramay Axmed Badar. waxaan ku mutahaysanay shaqada aan u qabanno maraakiibta dejinta rarista serviceka muddada loogu talagalay maraakiibta waa sida diyaaradaha schedule bay ku socdaan containerska qaada waqtigii loogu talagalay ayaan ku rognaa kuna dejinaa kuna ragnaa kuwa faariqa dabadna si uu distancekiisi kale usii wato sidaasaan ku gaarnay runtii serviceka shaqada aan qabanno dekada Berbera. marka howlahaasi aad sheegtay in aad muddo kooban ku qabataan ama waqtigii loogu talagalay aad ku qabataan kaabayaasha idin saamaxay maxay yihiin? kaabayaasha noo saamaxay waxa weeye human resource oo aanu tababar ballaaran siinay dadka shaqadan qabanaya oo u diyaargaraysan inay shaqadan qabtaan. dekadu waxay kasoo guurtay traditional board waxaana imika noqotay international board. beriyaha qaar waxaa jiri jirtay inaan weyno wiishash aan ku rogno containerada qaar laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo concessionka aan la galnay dekada DBOL waxay noo saamaxday inaan keeno qalabkii ugu casrisanaa ee dekada yeelan lahayd. taasana noo fududeysay runtii inaan standardkan soo gaadhno maanta. haddii tusaale aad naga siiso bishii oo kale ama sanadkii oo kale imisa ay xamili kartaa dekada ama container oo kasoo dega? waxaan ugu talagalnay sanadkii inay xamisho 500,000 oo container TOU. insha Allah bismillahi kariim marka terminalka labaad aan sameyno oo 600 oo mitir ah oo isagana ay saarnaan doonaan 7 SDS standard crane ah ay saaran yihiin waxaan rajaynaynaa laba inaan sanadkii handle garayno. bilooyinkii ugu dambeeyay howlaha dekada sida ay u socdeen ma kordheen tirada maraakiibta ku soo xiranaysa ma hoos u dhacaya jira bal faahfaahin naga sii. tirada maraakiibta ku soo xiranaysa way kordheen maalinta kasii dambeysana way kordhayaan maadaama daraaska hoose aan hoos u qodnay oo dredging badan aan ku sameynay oo aan ku gaadhsiinay international caalamka inay noqoto 17 mitir culayska badan sida 10,000 ee containerska si dhib yar ugu soo xiranayo maadaama berigii hore ay ahaan jirtay 11 laakiin maanta waa 17 markab kastoo badda ka gooshaa inuu kusoo xidhan karo dekada Berbera diyaar bay u tahay. marka run ahaantii haddaan tusaale ku siiyo berigii hore maraakiibta dal cargo-ga ee WFD waxay keeni jireen 22,000 oo tan oo metric ton ayuu markab kusoo qaadi jiray maadaama daraafku yaraan jiray laakiin imika sidii wiigii dhaweyd 18 bisha waxa soo xidhay mid sida 350,000 oo metric ton insha Allah future-kan waxaan rajaynaynaa mid ka badan 70,000 oo tan inay yimaadaan maadaama aan awood leenahay in markab kasta oo sida cargo aan dekada Berbera ay qaabili karto rogi karto dejin karto insha Allah. marka laga soo tago badeecooyinka iyo alabaha loo wado deegaanada Soomaaliland waxaa jirta sidoo kale in dekada ay ku xiran yihiin ganacsatada dalka Itoobiya bal ka waran kaalinta ay ku leeyihiin dekadaasi iyo waliba alabaha uga soo dega dalka Itoobiya. alaabada uga soo degta waxaana socda process dawladda Somaliland iyo dawladda Itoobiya transit agreement oo isaguna insha Allah gabagaba ah waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda 30% 40% inay halkan u soo maraan agab aad u fara badan imika gaadiidka baashlayda bajaajka alaab badan baa u marta laakiin waxaan rajaynaynaa oo ay ku qanacsan yihiin inay soo marin doonaan 40% haddii alla yidhaa marka heshiiska uu dhamaado labada dawladood. badeecooyinka ugu badan ay kasoo dega dekada Berbera xilligan maxay yihiin? badeecooyin fara badan baa kasoo dega raashin baa kasoo dega sonkor baa kasoo degta bariis baa kasoo dega saliid baa kasoo dega sibir baa kasoo dega baabuur baa kasoo degta qalab dhismaa kasoo dega aad bay u fara badan yihiin. World Food Program cargo fara badan oo ay ugu tala gashay bini'aadanimada ayaa marisaa berigii hore grade number 4 ayay dekada Berbera kaga jirtay laakiin maanta waxay ku jirtaa grade number 1 iyada inay priority ka dhigato priority port on East Africa waxa weeyaan dekada Berbera maadaama service-keygii aan ku dhacayn leverage halkii berigii hore damage ku dhici jiray oo maraakiibtu waiting-kooda u fara badnaa customer-ka si ugu dhaqsaha badan ugu performance-ka sareysa ayaan ugu shaqaynaa marka isbedelkaas runtii ku yimi dekada Berbera taasana keentay inay grade-kaa ka gasho overall dekadaha dunida oo dhan waxay ka gashay 104 taasina waxay ku tusaysaa isbedelka dhaqsaha muddo terminalka la cusub wuxuu dhisan yahay 2 sano u dambeeyay
labadaas sano u dambeeyey ayay ku tusaysaa isbedelka intaa la eg ee ay samaysay dekeda berberi taana waxaan uga mahad celinayaa dhammaanba shaqaalaha dekeda oo la geliyey tacab fara badan aqoon iyo iskil ujeedada laga leeyahay iyo waxa laga rabana ogsoon shaqada laga sugayna ogsoon taasaa keentay runtii inayn stage ka gaarno waxaan rajaynaynaa insha allahu labada sano dambe soo socdana inaan ka galno 10 ugu horeeya dunida haddii ilaahay yidhaa marka terminaalka cusub ee kale ee 600 mitirna isagana la dhiso kaasi waxa uu ahaa Siciid Xasan Cabdilaahi maarayaha guud